madaxweynaha Israa'iil wasiirka gaashaaniga ayaa lagu yeeray maxkamadda caalamiga ee dambiga dagaalka ICJ ayaa looga wacay oo halkaasi ayaa lagu weydiin doonaa iyo maxkamadeyn lagu sameyn doonaa dambiga dagaal u geysteen Falastiin iyo dadka maratada dadka shacabka ee laayeen oo sida bilaad ka baxay u laayeen marka wasiirka gaashaaniga awal ayuu hore xilka ugu qaaday markuu umad dilay arkin la xukumo rabo xilka ayuu ka qaaday wadanku ka cararay maanta waxa loo wacay Netanyahu wasiirka wasaaraha Israa'iil yani maxkamad sidii hawmaada iyo wasiirka gaashaaniga hore xilka ugu qaaday u bedelay labadaas xorba in halkaas dacwad dheer ayaa ka taala in xasuuq u geysteen dalka Gaza Falastiin dadka baabi'iyeen carruurtii waayeeladii ayayna eber ka dhigeen halkaas ayaana maxkamad lagu saari doonaa oo maxkamadda ayaa ku soo eedeysay inay ku heshay qodobada ugu adag ee dambiga dagaal carruurta hooyooyinka saqiirada xasuuqa iyo dadka masaakiinta oo marta waxba aageysan inay xasuuqeen ayaa lagu soo oogay halkaas ayaa maxkamadda su'aalo ku weydiin doontaa maxkamadda waxay tiri si degdeg ayaa loo baahan inuu imaado madaxweynaha Benjamin Netanyahu iyo wasiirka gaashaaniga oo dalka Yuhuudda inay imaadaan halkaas maxkamadda ayaa ka taala in la maxkamadeeyo dambiga dagaal ka galeen dalka Falastiin ummadii shacabkii intaas soo bilyan dad islaam ay laayeen oo waxba aan garta xasuuq u geysay misna u badan tahay caruur masaakiin waxba aan galabsan adiga daawanaya ma aaminsantahay in maxkamadda caalamiga ee dambiga dagaal ICJ inay xukumi karto madaxweynaha Israa'iil iyo wasiirka gaashaaniga Israa'iil inay xukun ku oogi karto aniga ahaan ma aaminsani oo maxkamadaas oo maxkamad ay sameeyeen ee qofkeena waana ku xukumaan qof ay ka socdaan ee maartay dambi been ay ku oogin ay ka farax qaadaan maxkamadda oo wacday waxayna ku soo oogaysaa in dambiga dagaal ay ka sameeyeen dhulka Gaza Falastiin dhulka ay islaamka degan dad ku baabi'iyeen xasuuq u geysteen shacab masaakiina waxba aan galabsan ay ku laayeen halkaas dacwad dheer ayaa ka taala wasiirka gaashaaniga ayaa loo wacay madaxweynaha Israa'iil sidoo kale waa loo wacay waxa labadiina waa inay ammaan halkaas qof walba muuqaalka daawanaya uu aaminsan yahay aqligiisa uu dareemi karaa in maxkamadaasi haba yaraatay Israa'iil ama Yuhuud ay xukumi karin waa ay xukumeen ayaga ayaa haysta Mareykan iskale maxkamadda Mareykan meel oo geysta waa dadka hore ku xukumo dadka hore oo ka daayay waa maxkamadda waxa leeyahay maxkamadda adduunka cadaaladda leeyahay cadaalad ma taalo wax loo jeedo in Falastiin dadkeeda laga baabi'iyay bilaa micdar loo laayay oo lagu soo duulay gardaro loo laayay carruurtii hooyooyinkii baabaha laga dhigay misna waxa leeyahay wiil waa la baaray inay weerareen Israa'iil inay dagaal ku qaadeen waa la cadeynaa bal fiiri waa dareemaysa in waxaan ay tahay wax been tahay oo maxkamad ahayn oo inay xukunta Erbil waxa loo jeedo in Israa'iil hal sano iyo bar madaafiic kala joogsileen ku garaacaysa Falastiin qof walba ayaa og sababtoo leh maxay waa la baarayaa oo dib ayaa loo fiiri doonaa in maxkamadda dib ay u fiirdo in madaxweynaha Israa'iil iyo wasiirka gaashaaniga aragtiis ay ka dambeeyay xasuuqaasi wax loo jeedo ayaa rabaa in la dabal la saaro Soomaaliya muuqaalka la gaarsiiyay maanta jimcaha waaye ilaahay dartiis walaalaheen Falastiin ilaahay libku dul qaado xaqooda ilaahay u soo ifiyo oo duceeno halkaan maxkamad ma taalo halkaan cadaalad ma taalo haba yaraatay wax leedahay cadaalad ma jirto ogaada Soomaaliya oo maxkamad beena haddii iyo koob waxay tahay waa baari doona kiiska inay ku lug leeyihiin inay xasuuqeen Falastiin ay ka dambeeyaan in madaxweynaha Israa'iil iyo wasiirka gaashaaniga Israa'iil inay xasuuqeen waa baari doona inay geysteen dambiga dagaal oo maartay bilaad ka baxa war wax loo jeedo cad ayaa la baaray bal fiiri waa u dareemaysaa in halkaas wax maxkamad habeertay aysan jirin oo wax been ay dhowr meesha kaasay inay maartay sabaa inay umad ku xukumaan Soomaaliya ilaahay dartiis masaakiinta walaalaha u duceeyo maanta jimcaha waaye qof walba salaad jimcaha tukadana walaalaha u duceeyo masaakiinta laga gadaraya si xasuuqayo oo wixii ay geysteen haba yaraatay aysan jirin oo maalin walba dhulka la simaayo hadda waxaa loo bilaabo in la hubo maxkamadda way baari doontaa in ay ka dambeeyeen Netanyahu oo ka dambeeyay duqeynta Israa'iil duqeynta Falastiin maarta ka dambeeyay wasiirka gaashaaniga in dad xasuuqeen ayaa baarayna bal fiiri haddii koo ayaa la baarayaa in dad xasuuqay ilaahay dartiisa u duceeyo Falastiin wallahi way dhabiyo Soomaaliya